aniga farxad gaara sharaf gaara iyo qadarin gaaraba waxaa ii ah saaxiibkay muuse biix cabdi xisbigan waa lahaa horena waan u ahay deegaanada ku abtirsada xisbiga kulmiye kow waynu ka ahay horena waynu isugu sheegno horta aynu mid isu sheegno yaynu dooranaynaa markaynu lehnay degmada axmed xamuud gobolka hawd baynu nay yaa inoo musharaxa muusha inoo musharaxa muuse laftiisu xaguu ka yimi dee gobolkii hawd buu ka yimi marka waxaynu dooranaynaa murayaani naga geli reer axmed dhagax iyo reer gobolka hawd inankeenni baynu dooranaynaa isagaynu codka siinaynaa isagaanu maanta xisaab halkan ugama baahna bulaashuruutartaa maanta aad u timaadeen hoolhanoo karayni meellahano ee ugu timaadeen xaruntii xisbiga taasaa ka dhaba taasaa ka dacda guddoomiye waa dad runtii waxaan yaro jeclaa maalintii dhaweyto waa inagii iska helay nairobi buu wuxuu ku maqnaa addis ababa guddoomiyaha xisbigu guddoomiye maalin dhaweyto arbacadii hore jabaabiirtan waxaan jeclaa maalin sidii maalintii dhaweyto ay u joogeen salamida maantana inoo yimaadaan laakiin way u socdaan waxa weeye 4 dalladood waxay ku barhoobeen dallad la yidhaahdo dan wadaag dallad kastaana waa 10 urur waa haween ku dhow ilaa 50,000 waxay sameeyaan contribution urur walba waxbay iska ururiyaan hadba qof bay caawiyaan waa ururo dhan oo ka tirsan degmada axmed dhagax waa jamaahiir muddo aanu ka daba wareegaynay maanta waxaan qabaa cod ku dhow 100,000 haddaynu ka rabno axmed dhagax ilaa maxamuud haybe ilaa eryada soo sidaa maaha ururadii dawadaageen waa ka helaynaa waa ururo midaysan nidaam bay leeyihin system bay leeyihin dad istaba jooga weye xafladii ugu horreysay 250 dumar ayaan ugu qabanay ambassador arbacadii si fiican bay aan isu laab xaaranay xisbigana waa ku ammaanta yimi waxaanay diyaar u yihin inay codkooda siiyaan ta kale kuu raacdo guddoomiye waa mujaahidiinta halkaa jiilaal baa soo fadhiya saaxiibada halkaa weerar allah u naxariisto halkaa waxaa fadhiya abshaar waxaweye markii mujaahidiinta ay taqaanay ee reer balugubadle aad weliba qaar maqaxyooda ka shaahin jirtay qaarna aad garabka isku hayn jirteen jiilaal waad ogeyd habaa soorbii nagaga dhintay weerarna wuxuu nagaga dhintay qaybtuu nagaga dhintay marka waa mujaahidiintii in badan dheeg baa halkaa fadhiya meel carab sigaduu garooriyey baa halkaa fadhiya xaaskiisii niman fara badan oo mujaahidiintu hataa halga ku lahaa halgankii ayaa beerta fadhiya marka waxaan qabaa qaar aynu u abtirinayno qaar aynu odhanayno ama aynu tilmaamayno maaha codkooda si gaara iyo si hoosaba waa u helaynaa midunbaan ku dardaaraya waxaa laga yaabaa inaad muuse jecesho sideeda u coday laakiin waxaa laga yaaba inay kaa bariiqato waxa markay rabadaan ay naga baxdo waxaa imanaya kaararkii baa la qaybsanaya dad fara badan berbera imika ten outka dadka qaatay kaarar iyo dadka isdiiwaangeliyey waxaa badnaa dadka isdiiwaangeliyey dadkii kaararka qaatay aad buu yiri waxaan idinku dardaarayaa reer axmed dhagax spiridkii aad lahaan jirteen inaad ku dartaan inaad ololaha kaarkana ku qaadataan inaad qofnaba kaarkiisu waayo waxaad hiilin karta wax ku dooran kartaa markaad kaarkaaga haysato waxaa laga yaabaa goobihii aad ka qaadatay 3 meelood baa loo kala jebiyey markaad goobta hore ka weydo waxaa laga yaabaa inaanad daraynba waxaa laga yaabaa inay warqadii kaa maqantay oonad warqadii haysan warqadii haddaanad haysan sawirkaagaa meesha yaalla magacaaga afar baa lagu weydiinayaa 4 magac baa lagaa qoray ka ugu dambeeya lagu weydiinaya xasuusno moobilkaaga hore haddaad bedeshay kii hore ah kuugu qoran moobilka eed isdiiwaangelisay sawirkaagaa yaallo 10 qof baa la isugu xidhay sawirkaagaa tiigaraynaysaa sinaba kaarkaagu waayi maysi propaganda ah haddaanad warqadii hayn kaar heli maysi ha dhegaysanina kaarkaagii sifo badan baad u helaysaa waxaan idinku dardaarayaa si aynu maanta ugu hiilino mujaahidka kaarkaaga horta qaado haddaad kaarka qaadatood codayso waxbaad samaysay laakiin haddaad ka wahsanto ama taa warqadii baa iga lumtay ama aad tegi weydo goobta umaynu hiilin hargeysana umaynu hiilin mujaahidkana umaynu hiilin soomaalina umaynu hiilin xaaladan aynu ku jirno somalilan waxay u baahantahay muuse biix cabdi bay u baahantahay
xaaladda aynu u baahanay maanta aynu ku jirna waxay u baahan tahay waa waqtigii muuse wax badan buu ka bedeli karaa anoo faahnahay wax badan buu ka qaban karaa waxaynu doonaynaa inaynu hamiyihii fog ka yarno arrintaa idinkana siraayo waxaynu ku tilmaansanaya xukuumadda hadda jirta dabarkii dhallinyaradii buu ka jaray xisbiyadii buu furay darajadii buu ku dhiirraday iskuulladii buu intaa ka dhigay waxaynu ka filaynaa haweenow baarlamaanka maanta waxaa idinka fadhiya hal dumara golaha wasiiradana 2 dumar idinka fadhiya waa kula xisaabtanaysa halkaas waa bari mujaahid waa kula xisaabtan inuu percentage siiyo golaha baarlamaankana inuu saamigiina idinka helo golaha wasiiradana inay saamigiina ka heshaan waynu kala ballamaynaa guddoomiyaheena waynu kala ballamaynaa waxa wax bedela maanta labada cududooda qarsoon waa cududda dhallinyarada iyo cududda haweenka codka idinku idin fadhiyaa ha ku baqaylina bahalka waa idinka filaynaa in cod fiican oo muuqle inaad siisaan xaflad tan mid ka weyn oo ka ballaaran oo aan xaafadii wax ka hadhinna guddoomiyaha kugu soo dhaweynaa dhawaan baana u samaynaa insha allah biidnillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu